nuba hadda qaynaa inta ka qayb qaadatay inay noo suurtoodo inaanu quruxda iyo jaamacadda iyo cilmiga kasbanno intiina nool iyo intiina shaqaynaysa dadkii ku soo tabcay oo fara badan intii dhimatay Allah u naxariisto kuwa nool ka soo qayb qaatayna mahadnaqiya abaal baynu u haynaa waxay la tahay Saleemaan oo maanta yiri shaqada waan ka tagayaa waan gawo waan daaray ana waan ku xigaabay deynta waxba igama weynay laakiin waxa weydiinayaa professor Saleemaan macallinkaagii baa nool principalkaagii iskuulka ku qoray oo caafimaad qaba oo wali shaqeeyay xageebay wax ka sigay adiga xageed loo dadajinaysa xasan meegaagu waa nooli labadii naadira qoray mid xamar baa lagu dilay markii xamar dadka aqooyaanka leeyahay abiya muldata maxamed yuusuf boor ninkii soo qabtay isaga shaqada qoray isaga abiyan baa lagu dilay tare oo hayb loo dilay jaahilnimada qaarkeed xasan oo naadir ahaa oo laalim tirig soo saaray waa nooliyay macallimiintiisa marka haddii dadkiisiba wali noolyahay xaq uu noo dadajay garan maayee waa kan beeshankii bilaabay waxa xilku ku soo socdaa isagu dhaqaaq waa lagu xigayaa xilku uu soo socdaa nin la sugayo yaa sugaysa shalay bay ahayd 200 baan gaaray afar kala soo misodan qarashadatii baan ahay amuud maantana alxamdulillah intaasay kororey la kaatay ya adduunka waxay la tahay dee macallinkaygana waa ka hadlay niman tacliinta yaqaano waa ka hadleen waa gabi nin yar oo dhalinyaro oo shirkad ka socdo aftahamiina waa hadlay mawduucii maanta halkan loo hayo intii laga yiri dadkii yiri halka ay ka qaadeen baan ka qaaday halkay dhigeen baan dhigay uga dambayn maayo si fiican buu sharxay maanta xafladda uu joogo aniga waxa ila gudboon in arday warrabo oo qarankeedii ka warrabo oo waxa isweyaaradii ka warrabo toddobiyo 20 sano ka hor halka waxa lagu qabtay shirweyne la shirka Boorame intiina xagga ka soo jeeda waalidka mooyee maanta qaranka jabinaysa bariga waxa laga yaabaa inaan da'diinu ku sinayn badankiina aydan dhalan qaarna aan garan karin xaaladdu sidahay in badan halka joogtaana ana waayar waahay intii nool ee maanta fagaaran fadhana way yar tahay oo kulay waa wax tiro lagu tan karo gudoomiyaha gudida amuud iyo dhowr inoo kala ka muuqdo shirkaas oo 5 bilood ku dhawaad fadhiyay waxay soo tii Soomaaliland oo dhan shirkaasi waxa laga arrinsanayay xaaladii markaa joogtay Soomaaliya iyo Somaliland oo 60kii midoobay oo dawladii ka duntay maxaynu yeelaa haddaynu Somaliland hay baa laga tashay waxa ka horeeyay daba socday shirk buuco oo go'aan lagu soo qaatay loo dhamaa waxa ka sii horeeyay mid berbera ah oo Somaliland soo timid oo dhibaato jirtay awgeed ergada qaar ku dhinteen dadka imanaya halkan waxay soo jibaaxayeen kuwa burca ka yimaada malaha ilaa 100 checkpoint oo ciidan degay kuwa hargeysa ka yimaadaana malaha 30 kuwa dila ka yimaadaana dhowr iyo 10 bay Boorame soo socodeen checkpoints ka yaala xaaladaha ayaa halkan waxa loo fadhiyay muddo dheer waxaan u maleynayaa jaamacadaha iyo iskuuladu inaanay si fiican u dhigin hawlihii halka ka dhacay oo aanay dhalinyaradu aad uga dheregsanayn mar khudbada meelaha odayaal oo ka akhriyaan mooyaan shirka dadka reer Boorame culays ku lahaa bay qaadeen hoteelada waxa jiray oo qura hoteelka la harow meel cawaalo bistaaleeyo yarna waa laga rabo hodeel ma hayno waxa qolo la seexdo reer cawaale ka guura erga ka badan 1500 oo Soomaaliland khiyaarteedii siyaasi professor suldaan ganacsade sheekh dhalinyaro dagaalyahan corneyl janan jabhad ayaa isugu yimid Boorame aqalaba weyn ma lahayn aqaleer baa dhammaan qof wala reer Boorame gurigiisa wuxuu qaybiyay laba inuu galayo marti siiyo
maxay boorma culayska u qaadaysa maxay baa ku xukuntay ku xoog weyneyd maxay u qaatay danteeda ku jirtay mustaqbalkiina inaad jaamacada ka soo baxday bay saa waartiin u qaateen waxay u soo qaateen in la helo xal marka hore nabad lagu helo iyo in la helo xal dadku ku wada dhaqmo oo Somaliland ay dhammaanteed ku wada dhaqanto oo ku wax ku wada qabsato halkaasina wuxuu noqday inay dawlad dhista Somaliland si ay uga baxdo dhibaatooyinka mustaqbalka u yeelato halka waxa lagu qoray axad qarameedka horreeyay oo isku xidha tabarka isku xidhay Somaliland oo markii dambana 2021kii ur bedelmay stoorka maanta aan isku xidho oo taleedo shirkaasi midhii u dhalay waxay noqotay nabad caama ha iska jiraan dhibaatooyin iyo dawlad Somaliland oo tii hore jirtay ee lagu dhisay burco oo markaa dhibaatooyin badan haysteen oo jirtay awgeed in la jeediyo oo Somaliland intii ergaa isku raacday oo nin walba hebel idhaaba joogay bariga galbeed in la yiraahdo dawladda noocaasa oo saasa u sanad stoorkaale madaxweyne ku xigeen aqal kuurti aqal baarlamaan ayaynu dooranaynaa iyadoo shilin lahayn oo dawladda taageerin oo cid shirka malahan Talyaaniga waxa lacag keenay cid kale xukuumada international bilood iyad ba isku tashanaysi qurba joogeeda tajaarta markii waxay jaaray ma jirin barigaas ayuun baa isu geysay dadku markay go'aan gaaraan ay aado ka talinayaan Ilaahay talada waafajiyo sidaas oo kale wax dhista dawladdaas ay dhisteen waxa horeysay tiibur cali soo dhisay oo Cabdiraxmaan Axmed Cali hay oo dhibaatooyin badan ku kulmeen duruufii jiray awgeed tii halkan ka sugaysana waxa loo dhiibay cigaal iyo Cabdiraxmaan Cali meel wacan bay wax geeyeen hay-adii bay noo dhiseen nabadii bay ilaahay wax ka qabteen hay-adii dawlad bay abuureen ciidamadii baa la mideeyay dhulkii la baneeyay meenadii baa la hal guro qaar loo doontay waxay soo gaarsiiyeen meel dastuurkiina jira axsaab in la furana la haweysto gobolladuna wada dhisan yihiin tii riyaal iyo Axmed Yuusuf ma ka dambeysay iyadoo markaa jaamacadu bilow yihiin oo aynu soo galayno reerkii wax dhahdaan marka abaartu ku jirta ee sahanku u raadiyo wuxuu rahadaa urtiya saxadina qayb soo galay iyadoo markaa dawladdu soo bilaabayso ayaa riyaaliya Axmed ku soo baxsatay oo loo filayo inay laba nin oo waliba waayarnimo dawladda yihiin ilaahay inuu ku gargaaray caloodayna way keeneenoo ilaa doorashooyin dimuqraadiya oo adduunku ay naga yaabo oo cod iyo midah ayay la gaarsiiyeen iyaguna ilaa ridoodu ka soo qaaday intaan nin walaal xil soo qabtayba saddex hal baa uu haystay udurixaadka saddex hal baan ka leexan karay marka diinta islaamka la kale isaga ilaahay waxa ka dhacay koow inuu Soomaaliland isku hayo dadka Soomaaliyeed duruufaha soo maray ee kala caqliga ee kala qolada ee kala danta ee kala aragtida bari iyo galbeed iyo koonfur iyo bad iyo bari iyo buur waxa jooga iyo nin walaal caqli laba ka aqoonta inaad isku hayso oo dhib badan qofna qoyska ka fikir aftaada carruur kala dalacadaas aad u haysaa afartaad meelka tiin ka waran waana isku haysaa Soomaaliland duruufteeda nin walba taasoo dusha u saaran yaa kale dusha u saaran taariikhtaasi dadka la yiraahdo ahlul hil wal aqd diintu qodaydu ay dhahdaan koow yaa ka culimada laba yaa ka dadkii ummaddu leeysteen madax dhaqameedka saddex yaa ka aqoon-yahanka tacliinta bartay ee koow ka tii ku inaa qoladina ma joogto ayuu xilkaasi la saaray madaxda qaranka waayo qofka waxa loo yiri xilkaas baa tahay aqoon-yahan baa tahay certificate lagu ictiraafay waxa weeye aqoon qaranka oo dhan baad gaadhay waad ka gudubtay qoyska waad ka gudubtay gobolka waad ka gudubtay qofnimada sultaan baa laga dhigay caaqil baa laga dhigay ummadda ku daba joogsatay xil baad qaaday kuwaagan iyo kuwa kale ee dalka dhaxaysaba inaad si wada hayso oo aanad kala jarin kada tirada anagu reebel taasaa dhacaysa xilkii maduna qarankiis ku hayst ma ahaaga yar darbaaxay dagaal kuma koortid haddaydan aqliga ka heshin marka hogaamiyana noqon maysid sheekh ummadda wadana noqon maysid xil la qaadi maysid madaxweyne ilaa aabba ama waalid
haddaanad diyaar u ahayn inaad qofka kaa soo horjeeda maskaxdiisa qanciso tii riyaale tii axmed siine ayaa ku xigtay halkii waddadii iyuun bay haysay soomaalida ictiraafka loo raadiyo mashruucyo ha loo dhiso dhaqaalo kor ha loo qaado waayo xil waxa weeye nabadii baa soo koraysay aqoontii baa soo koraysay markaa dowladuna waxay u bilaabantay inay u shaqayso adeegii bulshada markaa ay heleesho kolba tallaaba la qaaday ninkii iminka halkan ka hadlayay macallinka wuxuu yidhi cilmiga kolba mid baa dhinta kolba mid baa la soo qaadaa priority-ga mudnaanta qarankana kolba mid baa hadhayso mid baa la soo qaadanaya marka halkaa waxaa ka maqan markaa usilaaya bilaabi nabadii baa sii adkaysatay aqoontii baa korodhay muruqya yartay Soomaaliland ay cadawgeeda iska ilaaliso oo ilaalin karto gudaheed dibadba dabeetana waxa la bilaabay horumarintii yaana waan ugu nasiib badnaado intaasoo nabadii iyo horumar gaadhaan soo gaaray halkii baan ka qabtay waxaan ku daray in la helo dowlad wanaag oo dowladda la culade haddii kale waa jabaysaa waa in la culaa dowladda gudaheeda haddaa dowladda dhisto iyada la hagaajin waana mid hawl badan adigaa naftaada qoyska markaa tahay mar walba laba shakhsi baa tahay mar aabbaha baad u cadhoonaysaa intu ku canaanto markii yaraba cadhoon odayga waa cadhoonaya haddana waa qoyskii haddana waad haysaa qarankiina waa inaad taasaysaa wixii ka dhexeeyana markaa waa inaad ku ilaalisaa sida ugu dhow cadaalad ilaahun baa gaara laakiin inaad ku dadaasho dadka la baro inay wax wada leeyihiin oo mid yihiin oo u siman yihiin qaranka ay wada qaataan halkaasaynu maanta maraynaa ilaahayna wuu ina waafajiyey in badan aynu qaadno in badan way dhimantay inta dhimanna waxaan idiin sheegayaa dadkay sugaysaa waa idinka halkan ay ahayd shalay bay ahayd maxamed xaajuna cigalo prime minister oo xamarkeyd baa noogu yimid librariga Yurub hortiisa subay salabaan waa joogay wuxuu noo akhriyay Britain noqonaysa madaxda dalka riya nala ahayd ogar iyo nooleeya gaariga maanta anaga adikeeda leh ogaada Britain gaaraysaa xilka u diyaar garooba waxaan isku tashanay dhibaatada dadka la iska fahmaayo mar ma la dhamayn karo waa bilow dowlad wanaag walaaltinimo qaranka wada ilaashado dowladda wada ilaaliya meel wacan bay inoo maraysaa oo ilaahay mahadiyahay ilaahay inuu nagu gargaaray go'aankii aynu burciyo ku qaadanay booramana maanta halkaasuu marayaa waxaana ka markhaatiya xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska Afrika ka jirta iyo Soomaaliland say tahay ayaa ka markhaatiya go'aanadii bariga odayaasheena qaateen iyo dadkii joogay idinkuna ka aqbasheen dhalinyaraday inuu sax ahaa oo inu mahadinay oo inu meel wacan marayno xafladda maanta iyo Soomaaliland maanta geeska Afrika waxa ka dhacay halka joogto ayaa markhaati ka ilaahay baana ku mahadnaq maanta isu sheegi meena waxa geeska Afrika dhacay dad Soomaali baan isku xidho waa Soomaali walaalna wanaagoodeenu jecelahay dhibaatada gaadha waa dhibaato walaalka gaadhay tii horena waynu uga xunnahay inagoon itaalhayn oo dhaqaaleena aan cidin ictiraafin oo dowladda lacagna siinin oo inaan waxba lahayn mar kastoo ay ku timaado masiibo dabiiciis Soomaaliya dadkii jawhardhe kii beledweyne dheh mar walba mucaawino oo iska gooynaa inagoo eegayna waxaynu sunahay Soomaali meel joogtaba meel walba diyaar bano inuu ku caawino waxaanu u taakayno laakiin waxaanu leenahay talada wala kaleey Soomaaliya tana dhisantay haddaad adigu tan nala dhisi lahayd oo tan ku dadaal lahayd inay wanaagsanaato qaska ka dayn lahayd adigana waxay ku tar lahayd anaguna intan ka badan qaadi lahayd maanta dagaalada geeska Afrika ka socda ee jaararkeena ka socda ee ololaayay Soomaaliland nabad buuxda ay ku joogtaa ilaahay waa mahadale laba shicibka intiisa badan baale nabadda oo iyaguna ilaashaday waxa kale oo mahadnaqaynaa dadka naftooda u xuray ee maalin walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabadda ilaalinaya qaarad ila qaarad ee wada garanaysan ee qoysaskuna kamid ahaayeen iyagoo nabadda ilaalin lagu laayay ciidamadu dadka waxay dheer yihiin adigu aqoon baad ku caawinaysaa talaad bixinaysaa saayara qoyaharo odaygu talu bixinaya baacimtarka shirkadaheena Allah barkeeyo marka la adkaado loo carara lacag bay bixinaya laakiin naftiisa huraaya oo inaydan maanta idinku dhiman askariga halka jooga wuxuu diyaar u yahay haday balaa dhacdo xabad soo dhacdo inay nabad galno isagu xabada soo dhigo ilaahay baa lagu mahadiyaa in la helo caynkaas oo Soomaaliland ilaaliya dhammaanteen inuu heerka gaadhaa baan doonayaa oo nusaas soo jeclaana hadii Allah ilaaliyo
عمود محاك الربا ما أنت إنما ذاك بحية هبلاك بحية عمود لو هرس كهلي بيس وجامعة قرن كوريس وجامعة أوركس سومالي أفكار أنت قاعد هي سومالي لأنه لمبا سمرتون نور وقفانة يخرج وحدونا يا واحد جوته هو يجي لو قبت شركة بورمي واحد جوته مقالة دي نقول سمية على كسومالي نبكيس وحكى بحيسان هل كل سمية هستا قرنك سومالي waxaan ka doonayaa oo Soomaaliyeed ka sugaysaa jaamiciyiinta reer Boorame iyo dhalinyarada Boorame iyo odayaashooda iyo waayeelkoodaba inay qaadaan qaranimada Soomaaliland caalankeeda sharafteeda horumarkeeda iyo taladeeda inaad horumar ka noqotaan baan doonayaa annaan ku faano waa jaamicadayda waxaan ku soo gabagabeynayaa halkan maanta Soomaaliland waxay baahan tahay in aqoon lagu maamulo nabadii odayga caaqilka hayay ee labada qabiil ee geedka ahayd waa la dhaafay nabadda maanta Boorame meel ka xumaatay meel ka xumaatay dalka kamid ah waxa ku jira Ruushya Mareykan iyo cid kasta iyo dawlad kasta iyo khaliijka oo ku jira magaalo kasta oo dalka adduunka jirta maanta haday waxay dhacaan gacmo badan baa soo gala dadaan aqoon lahayn oo waxa gareyn kama dabaalan karo waxaan doonayaa jaamacadaha iyo ardayda inay koow ka noqdaan nabadda qaranka ee ilaaliyaan maadaama adduunka uu noqday meel la iswada gaaro oo la wada hadlayo dad aqoon baa nabadda hayn kara oo garanaya dalkooda waxa ku soo socday u fiyahay koow waxa la inuu dhaqana xoolo si loo dhaqayo waxay u baahan yihiin cilmi haddaan si cilmi loo dhaqay si waalidkeedu dhaqmayay ma soconayso roobkii wuu yaraaday abaartii way badatay haddaynaan fikirin ilaahay bini aadam idinka dhigay waqad karramnaa bani aadama khaliifatan fil ardi kuwa aqoonta laanay fuulaysaa wali waajibaase idinka la hadlaya ayay kow ka tahay abaarta inaad ka hortagtaan baa la rabaa oo aynu u raadinaa sidee dalku biyo u helaa beeriyo xoolo ugu noolaadaan ama dadku cabo magaalooyinkooda way haraadan yihiin boorga way haraadantay maano saddex baafti oo ceeb baan qadaa oo qura aqli ma aqoon bal raba yaa research sameynaya yaa hawshay soo jircinaya markuu aqooyahanku soo shiila talada abaal baa lagu qabo dadka taas lagu wada aqooyahanku waa inuu ka baxaa foorarka hoose waanu yahay maanta intiina war qabta muxuu naga hadlayaa madaxweynuhu maanaga xagga shaqo tagto aan leenahay inaad shaqay abuurtaan raba inaad biyaysan baan raba inaad xoolaha dhaqdaan baan raba inaad dalka baacimta iyo xisaabaad furtaan baan raba isaas la keen inta ka horeysaba inta anaga bay keentay kaasa maanta dadaalka uu yahay nabad baynu joognaa dababada bahreer ka baxaya waxaanu qaadanay haddaan dawladda nahay go'aana waxa ka soo ceyrayna dhex ka noqon dhex arab Ethiopia dawladda ka waysaya Eritrea anagu waxaanu Soomaaliland nin walba gacan nabadeed baan u haynaa nabad iyo iskaashi ninna anagu dagaal kula socono ninna dagaal lagu qasbi maayo u yeerimayno proxy war iyo dagaal la soo adeegsada hore inoo dilay waa tii ay ku abadatay hore waa inay haataa Soomaaliland dooni dhaxmaraysa badweyn nabad ku socota aqoon ku leh garanaysa xidigaha iyo badda say uga dabaalanayso taas ay noo balana taas ay ku wada dalkeena dagaal marxaatiga ugu dambeeya waxa weeye Soomaaliland maanta xaalka maraysa nabadda iyadoo waxaas dhacayaan ayay Soomaaliland qabsatay doorasho kuwii doorashada ina baray ee Mareykan iyo Ingiriisiga ay nagu majirteen inagu bogaadeen cadaaladda nabadda iyo aqoonta ay ku dhacday waa waxa lagu mahadiyaa shicibkaan uga mahadnaqaya xisbiyadan uga mahadnaqaya guddiga ka shaqeysan uga mahadnaqaya iyo cid kasta oo wax lagu tagtay waxa Ilaahay mahadiya inaan lacagta ku baxdo fara badan oo in la yareeyo ay tahay kharashkaasi oo aad inoogu badnaa culays ahaa in boqolkiiba 5 iyo boqolkiiba 82 ay Soomaaliland bixisay oo ay ahayd cashuurtii dadka laga qaaday oo loo kaydiyay inanu saata daban isku tashano weey maxaynu maanta guul baan joognaa dawladii mucaarad iyo muxaafid ma kale mucaaradka qayb oo haya aqalkii baarlamaanka oo haya meeradii qaar boo haya dawladda inta kale haysa maxaynu nahay noo mucaarad dawladda oo shaqeynaysa oo shaqeynaysa laga yeeli maayo gudoomiyaha mucaarad baan oo aanu dawladda ka soo horjeedsanaya qaranka qayb baad ka haysa wadoo taawsh meerka soo baxay xisbi kale qarankii baad qayb ka soo gashay xisbi waad ka timid
isku xil baynu nahay sharciga dastuurkiiyo qarankaas u dhaqmaysaa maxaynu yeelay talo wadaag mucaarad iyo muxaafida waataynu ku nabadgelinaa haddaynu saa kuwa dambana u qabanano waxay isula ogolaana haddii alla idhahdo idinkaa lidinka soo ayaa daayartiinan inaad waddadaa martaan oo idaanigaga noqon intii qoqoqubka ahayd aynu soo garayno inta ku soo furnay waan ku dheereeyey aad iyo aad baa mahadsantihiin hambaliyo if aakhira wana wala samariyay rajeenaya wasalaam